من مدحوينها الصومالية انتو ستة ترتم إنه سقف كلا ترتم يكجولي سنين يكمل قاعد كعيسى وابا اسكسرناها الصومالية oo looma ogola in uu ku laabto xasan maxamed cali suuna maanta waxaan leeyahay waxa kula gudboon inaad cadaalad fasho oo iska ilowdo damajadiid terrorism iyo waxyaabaha oo aad noqoto madaxweyne muddada 4 sano oo hayay ma taqaanaa dalkii nabadeeyay oo cadaalad ka hirgeliyay oo sinaan ka hirgeliyay oo markuu xilka ka dago aanu og inuu ku soo laaban doonin oo mucaaradka ay ka xoog badan doonaan bari hadduusan deehin macangaga إن عنده كوميرتير استعمال صحيح إن دورش حر لغة كان دونا نيجو مع دال فلدونا أو ضدك هرمون مجالسين دونا مثل واحد أصدق ديارنا يا يسوي كنتني أفرجله إنه أصنع حوت النقضة أو جد كي صاحب ذيك هري مدح وناشك هري أمره تاسو أن كل يعبك هنا الشعب الصومالي يعبك waxaa intaas ka sii daran waliba aniga waqtigan haysta waliba uu kooban yahay waxaan ku qanacsanahay 4 sano anigu haysta waxa ka dambeeyay dhaqanku wuxuu aajir qofkii mar yimaada mar labaad inuu soo noqonin marka waxaan assume gareynayaa inaan soo noqon doonin wixii 4 sano aan qaban karo inaan qabto ayaan xoogayga saari doonaa hadii alla yiraahdo waayahay waxaan rabaa marka inaan la hadlo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waa inay arrintaasi aad mataqaanaa iyaga dhuuxaan waxa ugu horeeyay madaxweyne Soomaaliyeed aadan cabdullaahi ismaan allah naxariistay aadan markuu xilka dagay sidoo uu joogay ugu dambeyn 10 sanadood isagoo sariir saaran oo xanuunsanaya miisaankiisuna aad u yar ayuu geeriyooday ma helin maamuus heer madaxweyne in loo maamuuso beertiisa oo iska dhex joogi jiray wuxuu ahaa un kolba nin hadda cadaawad lahayn oo shacabku aysan raadsanin waxa ku xigay Cabdirashiid Arshar Marke isagoo Cabdirashiid taagan oo qodbaynaya la toogto dhintay waxa ku xigay Maxamed Siyaad Barre oo afrin military ku qabsaday inqilaabay Maxamed Siyaad Barre kula sano isagoo ah madaxweynihii ugu mataqaanaa ugu awoodda badnaa geeska Afrika isagoo la ogaa heerka military ka gaaray ay USCD iyo SNMT iyo SDFT fa u qaadeen oo dalka baxsaday wuxuu qaxooti ku noqday Nigeria Maxamed Siyaad Barre ah ninka sida awood badan xanuunka wadnaha ku soo booday gaari lagu qaasbay lagu geeyay la waayay taxi lagu qaaday kadibna waa ku geeriyooday isagoo qaxooti ku ah Nigeria ayuu geeriyooday oo la ogaa habkiis gudaha Soomaaliya loogu aasay keentaankiisii dhibka loo maray isaga halkaas uu ku dambeeyay waxa markii Maxamed Siyaad Barre ka bax dalkii madaxweynaha ah Ali Mahdi Maxamedna dagaal sokeeyo markaa galay kontraado qaatay badda Soomaaliya sunu ku shubay waxa ku soo baxay Jaal Maxamed Faarax Ciidid oo yiri madaxweynaha waxa kama jiraan Ali Mahdi Maxamed maanta oo ay ka soo wareegtay sanado badan xilligaas qiyaas ahaan 1990 iyo labadii 20 iyo dhowr sano ku sano soo wareegtay wuxuu qaxooti ku yahay isagana maanta magaalada Nairobi oo si xor ah dadku uma dhaxmari karo Jaal Maxamed Faarax Ciidid kursiga ku qabsadana asagoo dagaal ku jiro ku geeriyooday ee xabad ku dhacday asna halkaas uu ku baxay waxay Cabdiqaasim Salaah Xasan oo artar ugu soo doortay Cabdiqaasim dadkiisii dowladnimada ka hor yimaadeen ayuu maanta wuxuu qaxooti ku yahay Masar Qaahiro jooga oo asaga halkaas oo fadhiya maanta soo cimriga ku jiro ayuu halka qaxooti ku yahay Cabdiqaasim waxa ku soo xigay Cabdullaahi Yuusuf Axmed intuu yiri xoogan ku maamulaya dalka ayuu xabashi keenay oo kumanaan kuna Soomaaliyeed dilay ayaa maalin dambe intay Janday Faisal ku qabatay garoonka ku qaabishay Jomo Kenyatta ee Nairobi ay ku tiri xilka wareeji intuu xilka wareeji ayuu qaxootinimo Ingiriiska ka weydiisay Yemen asagoo Yemen qaxooti ku ah ayuu ku geeriyooday Shariif Sheekh Axmed kursigiisii bedelay Shariif xilliga maxaakiimtana magac islaam mutaqana carruurteeda ku dagaal galiyay markaana dawladdu noqdo madaxweynaha noqdo dagaalka ku dagaal galay inkastoo kuwa dagaal ay ahayd xaq ah inuu dagaal maanta isagana doorashadii waa looga adkaaday xasan maxamed cali sow ayaa madaxweyne adag ka adkaateen leeyahay markuu adkaadana Shariif maanta dalkiisii oo isku aamin waa inuu joogo wuxuu meengeli weydiistay Uganda
wuxuu qaxooti ku yahay Kampala caafimaad aantiisana maanta kama warqabo inkastoo dadka qaar leeyihiin caafimaadkiisa ma fiican xagga xasuusta iyo maskaxda asagoo maanta ah sanadkan inuu ku dajin noqon doono qiyaas iyo halka jooga qaxooti ku yahay taas waxay ka marqaati kacaysaa horta marka loo fiiriyaa nin madaxweynaha Soomaaliya intuu isu taagay tartan inuu qof kala tartamay ka guuleysanay ay ka marqaati kacaysaa oo waaba iska sunnaha Soomaalida oo looma ogola in uu ku laabto xasan maxamed cali suuna maanta waxaan leeyahay ma waxa kula gudboon inaad cadaalad fasho oo iska iloodo damul jadiid terrorism iyo waxyaabaha oo aad noqoto madaxweyne muddada 4 sano oo hayay ma taqaanaa dalkii nabadeeyay oo cadaalad ka hirgeliyay oo sinaanka hirgeliyay oo markuu xilka ka dago aanu og inuu soo ku soo laaban doonin oo mucaaradka ay ka xoog badan doonaan bari hadduusan deehin macangaga in macangaga ku militarism mucaarad ahayn in doorasho xor looga adkaan doono anigu macdaad fal doona oo dadka horumar ma gaarsiin doona mise wuxuu isu diyaarinayaa isagoo 54 jira inuu asna qaxooti noqdo oo jidkii saaxiibadii ka horreeyay madaxweynayaashii ka horreeyay oo maro taasoo aan kaliya ceeb ku ahayn shacabka Soomaaliyeed ceeb ku tahay ayo anaga madaxdeena ama madaxweynayaasheeni inuu maalin walba nolol liito ama tiiraya uu ku tagay waa wax aad u foolxun waana waxay isweydiin Soomaalida waxay yiraahdaan tagta dhaafid timaado qabo laakiin ma aha waa in la taariikhdu la raaca waa in la xasuustaa waa in la isweydiiyaa waa in la sameeyaa research cilmigana waa sida taasi madaxweynahan leeyahay waan arki doonaa